وين سراخ يعني وقرأت كأبابلان وحنا كلا صحاب لي مر لما تشوفها مانتا هوتيل بان هالكنا كجرا waxaan ka firsan waayay inaan laba kalmadood ka iraahdo arrin ku saabsan ninkii odayga ahaa Juxa ninka odayga Juxa oo noqday mar wasiirka waxbarashada Puntland mar dambena noqday wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya xukuumadii ninka la yiraahdo Xasan Cali Khayre daahirka laga qaaday dowladda hadda farmaajo madaxweynaha ka yahay dhowr jeer baan ka hadlay ninka odayga oo nin aad u taageero uu ahaa markii hore hadda maaha intuu fiyoobaa Soomaaliga dadka aadka u ablaableeyay ee wax qora ee taariikhda Soomaaliyeed ka sheekeeya uu ahaa dadka aan hadda jeer xaraha qoraaladooda marka waqti ayagu kamid ahaa ninkii odayga ahaa markii xilka laga qaaday garowga soo laabtay anagu ma diideen qofku inuu gurigiisa ku soo laabto kula soo yarjacaysa buu hoola tago ama baran ha tago ama boorama ha tago ama mataqaana ayl ha tago ama garow ha tago qofku consultigiisa meesha laga soo toosay haduu ku laabto inuu ceeb ma arko laakiin marka uu ku laabanayo waa inuu dadka u tagaayo Soomaaliyeed wax anfacaya uu dib ugu celiyo iyo wuxuu ku dhaamo ninkii Juxa ahaa simis markii xilka laga qaaday isagoo borderka Kenya ee Soomaaliya waliba jooga wuxuu bilaabay inuu qabuuro soo faago inuu ka sheekeeyo barkadaha la dhowday waxbaa la dhibaateeyay siyaab baraha sidan yeelay iyo sheekadii aan isaga iyo dadka la garaadka iyo dadka la daa iyo dadka sida la guuba xilligiisa jooga ee siyaasiyiinta sheeganaya aan laga rabin waxa ahayd wixii wanaagsan in ummadda Soomaaliyeed baro waa listiri anaga Soomaaliyeed istishay wala kala yaacay wala kala irdhoobay ma diidanin mana beeninayno dhibaato badan way dhacday laakiin waxa way dhibaatada qoys gaar ah kuma dhicin koox gaar ah kuma dhicin magaalo gooni kuma aysan dhicin 30 sano la istilaayay waxyaalaha xun baa ka dhacay Soomaaliya oo u baahan in dukumeenti laga sameeyo oo intii siyaad bare oo mootan Ilaahay u naxariistay wixii dhacay maamulada qaarkood ay sameeyeen maamulka isagu hadda ka tirsanaa baa ka taran waxyaalaha sida barsameeyay dad nool loo dhiibo Itoobiya loo dhiibo tan hadda farmaajo ku eedeynayo iyo waxa uu qoraayo halkaas ku horreysay dad la toosho gareeyo water board lagu sameeyo Mareykanka baa laga mamnuucay hadda inuu sameeyo go'aanada biyo lagu sameeyay jiray Puntland bay ka dhacday dhulka meel ka dhacday Soomaaliya xitaa nimanka hawiye ee Soomaaliya ee xamar ka taliya ma sameeyay jiray markii dadka xiriir jireen qanyare iyo ay ashaala dirka samaysteen dowladda sano waxa way marka dhibaatooyin xun baa dhacay geey kasta ee Soomaaliyeed ha kala waaweynaadeen way jireen kufsiyo right dadka bas Soomaaliyeed loo geystay bilaayo dhan baa dhacday dad hantidooda la dhacay oo xamar badan mataqaana dad gudahooda laga xoogay anagu ma diidan waxa soo dhan waxaan u baahnaa waxa wixii dhacay warma ka walaalowna waa kala irdhownay mis cafinaa buqaad kasta oo nabada oo Soomaaliyeed ma amaana intaa way waxaan u rabnaa waxa maanta kama aan rabayn inuu qabuuro soo faago barkadaha la sameeyay waa lacal hadii la sameeyay waxay ahayd inuu ka sheekeeyo oo dadka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada jiilka dambe iyo dhiigga cusub uu qaro waxaas way dhaceen wala hadii ay dhaceen sideen uga bogsanaa oo dibdama aynaan u soo marin marxalad noocaas maxaynu 10 ka qaadan karnaa waaba hadiiba ay dhaceen hadii anigu ma accept gartaan ay dhaceen ma xaqiijin karno laakiin hadiiba ay dhaceen waxa weeye sidee looga gaashaaman karaa markan inay dhacaan sidee hadii ay dhacaan looga bogsan karaa oo dadka isu cafiin karaan labada qodob kaliya ay waxa u yaalay inuu hadba qaabka tago oo barkad baa la awdi oo sunba lagu daray oo dadka Soomaaliyeed waxa baro oo la sii kala irdhay oo colaad u sameeyo wax macna ma sameeyso Juxa haduu aqoon leeyahay lacal labaad haduu leeyahay weeye middiin iyo midnaadi waxa la in ciyalka Soomaaliyeed ka faa'iideeyo oo wixii uu yaqaan uu baro oo waxa wanaagsan ku barbaaray dadka aqri uu liibaani lahaa credit isagana oo ahaan lahayd aniga hadda fiitaan hadii barkad uu leeyahay la awdo oo ciid lagu shubo ama sun lagu daadiyo oo ninkii ku daayina uusan joogin inaan ummad kale oo aan waxba ii dhibin aan dhibaateeyo ama aan dad kale colaad ku beero ama caruurtayda kuwa nool iyo kuwa dhabarka aan ku sitaba aan ciqta iyo xumaan ku beero maxay ii taraysaa anigana xanuun bay ii tahay oo cudur iyo sonkor iyo macaan iyo balaayo dhan baan isku ridayaa oo homework baan naftayda u diray ciyaalkaygana homework baray oo alla xitaa waxay ahayd inaan wax wanaagsan taariikhda Soomaaliya inaan baro bay ahayd intaan waxa kale fadhiya marka mudane Juxa siyaasi Soomaaliyeed oo reer Garowe ah
waxaan leeyahay wuxuu sheekooyinka aadudi faroola ku daandaamay oo maanta bayhoof ah oo idin aan wax weydiin ninkii ku mashquula Soomaali inuu wax xun u kala sheego oo xiqdi iyo xumaan ku beero wala ameel xun baa u tabeynaysa warweyn istilay madiidana amad waa la isqunay waa la iskaraacay Somaliland hadda jirta beel bay isu diray anuu ceergaabaan ka imaan lagu kala qaxay in galool baan ka qaxnay haddana waa laga heshiiyey buug baa laga qoray shir baa jiidali ka dhacay ceergaab uu ka dhacay in galool buu ka dhacay booram uu ka dhacay burco ka dhacay waa la heshiiyey dadkii xalaal dhalay bay noqdeen mala socota hadda xalaal dhalay ceergaabada 10 beelood bay isku laayeen waxa weeye anagu in galool oo intaas oo kiiloomitir u jirta ayaa lana ku soo duulaan ka qaxnay 10 jeer waxa weeye haddana waa laga heshiiyey cid maanta haysata ma jirto waxa la noqday mataqaanaa xalaalada marka waxaan u baahanahay Soomaalidu inay kaga daydaan reer waqooyiga sidii ay u heshiiyeen especially shirki ceergaabo oo beelaha ceergaabo degan ay ku heshiiyeen gees buuga ka qoray adigu akhriya heshiisyadii la galay kii jiidali iyo kii carmale iyo kii ceergaabo iyo dadkii waa laga heshiiyey magaalada 10 jeer la qaxo liistili oo guriga lagu Rwanda ka dhacay wax ka daran baa ka dhacay laga heshiiyey Rwanda ka dhacay wanaga waa ognahay haddana waa laga heshiiyey Kenya laba talaabo inuu jirto waxba ka dhacay toosanka ee la shaqeynka isku qabteen iyagoo aan isku af iyo isku dhaqan iyo isku diintoona ahayn madax iska jaray haddana way ka heshiiyeen waxay Soomaalidu marka waxaan u baahan waxa weeye inaynu ka heshiino wixii dhacay waliba inuu dhaqan baynu u leenahay dad islaameen nahay wiil iyo abtigi wiil iyo eedadii dadku qaraabo wax xigto anu xamar haddaan tago maanta laga inaan qaraabo ku yeesho asxaabina ku Hargeysa haddaan tago sidaas oo si kale qofka xamar Kenya Hargeysa haduu yimaado qaraabo ku yeelanay dadku waa ahel marka waa in la walaalayo dadka waxnimada laga shaqeeyo oo dadka culimada iyo siyaasiyiinta dadka ileedka ay dadku dhageysanayaan in ka shaqeeyaan oo yiraahdaan wixii dhacay way dhaceen ma walaalowna marka tuxa hadda waxaan ku soo xasuustay sheeko yar oo ka soo qoray Facebook isku soo qoray oo hadda dadka soo xasuusanay SSDF iyo noocaas marka SSDF jabhad jirtay bay ahayd oo nagu tiri dulmi baanu ka dagaalamayna ma garanayno dulmiga soo waxay bilaa ilaahu naxariisin oo hogaamiye Soomaaliyeed waa uu dhintay wax isaga dadka community-ga halka deganna wax SSDF ka sheekeeyaan waxaan baan arkay dimalaha SSDF waxay ku aasan tahay guriga waxa ay garowga ma garanayo cid kale oo ka hadasha nimankan tulkana haysago baa sheego yala kaliya ay ku amaanan yihiin wax kamid ah in dadku waxay jabada kala xusayaan ay buunbuuninayaan halka laga ma yaqaan waxa sababtoo dadku ceeb bay u arkaan qarankiisu waxa anaga Maryland keenay barafka Europe la bixila ah soo dalka ay burburiyeen jabadaha Soomaaliya waxa ku ka ahaa waxa kamid ah Kenya iyo Moscow marka isku noolaan jireen Toronto iyo Ohio joogi jiray taksiila ka ahaa marka dalkiisii uu sharaf leeyahay joogi lahaa demu yimaadeen oo uu garmuusan ka ciyaana ma taksi dalkiisu jikala lahaa marka wuxuu waxaan nabaday adeero aan ugu leeyahay waranka Soomaaliya ku leeyahay Soomaaliya ha joogto Boorame Hargeysa Gabiley Bohoodle Baran Xingalool Boosaaso ay qardho galkacayo xamar wada information doonto baydhabo oo dad ehla oo walaala ah wax dhacayna waan ka garaabayna waan ognahay laakiin dadka hal walaaleeyo wuxuu dadka waxa ay wadinayeen kada oo siyaasiya baa tahay oo dad badan ay mataqaanaa ku soo hiranayaan kamarad baa iibsatay hadda oday iyo habar baad soo wareysanaysaa hadda qabiga tagaysaa waxaad ka sheekeynaysaa dadka wax xun iyo xiqta habarin dadka taariikh suuban oo wanaagsan bar dadka u sheeg Soomaaliya inay kala dhawday laakiin dib la soo noqonayo taasan faa'iido inta muuqaalkan soo duuban inta weeye oo Soomaaliyeed baan ahay anigu qabyaalad kama hadlo Soomaaliya waa ay wada mid oo ay siman tahay channelkayga dad ku cusub tahay subscribe baa saaraysa si aad ila socotid baraarujinta iyo waxa wanaagsan halka ka sheegno inna ma anjafayno inna ma duufo inna ma taqaana afkaartooda ma diidno laakiin iyanaga qofka fariin fiican u dirayna oo tusaaleynayna waxa uu sheegay wax khaldan yihiin wax wanaagsan umada ugu bedeloon baa rabnaa Soomaalida sidaas laga rabaa inaan walaalowno wanaag nabadda isbaxo colaadda joojino isku baraarujino baaqayna nabadda jiro ka shaqeyno nabadda la walaaleeyo dadku waa ehel dadku waa walaalo waa wali abti taa laga shaqeeyo marka juxow taladayda qaado dhowr jeer qoraal baan ku soo qoray Facebook si personal wada akhriyo kuma soo jawaabin كتب رباط كورين إن هذا وقتها ولا جت تيجي يعني جا جول هذا كوسلامي أورجينال كاس سبسكرايب صاروا سلامي